الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد درسنا فريطبانات كمذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. درسي maanta wuxuu ka bilaabanaya baabku sheekhu leeyahay baabu min ashirki al-isti'aadatu bighayri Allah. shirkiga waxaa kamida buu sheekhu yiri rahimahullahu ta'ala waliba shirkiga akbarka ah ee islaamka looga baxo al-isti'aadatu magangal bighayri Allah ilaha ghayrka la magangalo. isti'aadadu waa cibaado waxaana hore u soo ogaanay shayga cibaadada ah hadii ilaha ghayrkii loo leexiyo inuu shirki yahay هدي الله سبحانه وتعالى لو ليحيين إنه يا توحيد إخلاص مركا العبادة صرفها لله سبحانه وتعالى توحيد وإخلاص وشرك وصرفها لغير الله شرك وكفر واي استعادة مركا ما ننقلك ويان إن إله غيرك سبحانه وتعالى لما ننقله ayadu waa shirki akbar wey sida in dad qubuura ku jira la magan galo in jin la magan galo in cid kale la magan galo waaya saacadada wixii shariicada ay banaysay oo kala anaga haddu ka hadlamayno wa qawli Ilaahi ta'ala ayu baab yahay Ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun rag waxay ahaayeen oo min al-insi insiga kamida ee bilaadamka kamida waxay ahaayeen yacuuduna kuwa magan galo birijaalin rag bay magan gali jireen oo min al-jinni jinka kamida fazaaduhum jinki arrinka wuxuu u kordhi marka rahaqan waayahay isla weynin iyo kibir ayuu u kordhi. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala koox ee kamida insiga ama bilaadamka waxay ahaan jireen kuwa magan galo rag kale iyo koox kale oo ka tirsan jinka markay jinkii isu haystay in bilaadamka uu ka sharaf badan yahay ka qiimo badan yahay hadii asagaba magan loo yahay la hoos galay oo macnaha faa'iido laga raadinayo dheef laga raadinayo arintaas jinka marka waxay u kordhisay rahaqan kibir iyo isla weynan ayay u kordhisay weeyaan. tafsiir kalena aayadda waa leedahay oo ah فزادوهم إنسج اللي غفسره إنسج إبل آدم كي جينك مجنجل وحيو كردسي أرين مجنجل كاس وحيو كردي رهقا عبصي والول وحان هارب وهي سنين هاد وحي كعرايم وحقدر أيا أكردي ويا عبصي كلا أيا أسي كرتي اللي مدد إله غير كيس مجنجل أو ثلاثة أو معناها جرجار ويجستي ويان أو استعاد عفوا مجنجلي ويان. aayadan marka sababkay ku soo degtay culimadu markay tilmaameen insiga qayb kamid ah waxa markay meel cidlo oo duur marayaan ay naftoodan u cabsadaan bay meelaha ay tagaan meeshaas ay waxay dhihi jireen nacuudu biwaadiha macnaha bi sayyid hada alwadi meeshan togan waxa weeyaan sayidkiisii ninka odayga ka iyo kan ugu weyn ayaan magan galeynaa waxaana ka magan galeynaa bisufahaa qowmihi qowmkiisa kuwooda macnaha waa maangaabka kuwooda caqliga yar ee waxa way dadka laga yaabo inay dharbaaxaan ama ay dib noo geystaan baan ka magangalnay dhihi jireen aayadana ku soo degtay marka waay markii isti'aadadii waxa weeyaan waa cibaado isti'aadadu waa cibaado hore waxaan u soo sheegnay sheegay inuu cibaaday waxa lagu ogaan karaa inuu Ilaahay faro subhanahu wa ta'ala uu amro waxyaalaha lagu ogaan karo waxa kamid ah in Ilaahay dadku uu amro Ilaahay isagoo dadka amray subhanahu wa ta'ala isti'aadada iyo magangalkana قرآنك وقصة أرارتي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بقرآنك قصة أرارتي واي ما لك لدى الدول فاستعذ بالله إلهي معناه وحويان مغنقل الاستعاذة مركا أمر با النبي القدسي عليه السلام إنه إلهي مغنقله حديث كي ابن عباس وكيها وإذا استعنت كانت استعانة أيها وأنه إيمان دونا بابك إن شاء الله تعالى واي مركا أحاديث كلان وقصة أرارتي حديث كلان ويكون صارت بابك الماميس إن استعادة مكة عبادته آية القرآن كان وابت المانتي
سادرات مركز ما دام عبادتها يسقناتي هذا إن إلهي غيره اللو اللي يحيو أرنت أما بنان وانا الشرك كفري يقال لي مويا وعن خولة بنت حكيم قالت وحيتري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك علي أن مغل يقول حال وليهي من نزل منزلا باص منك يدقه وفقال يرها أعوذ وحان مغنقلها بكلمات الله إلهي كلمات كيس أريدي سن مغنقلها التامات إذا ما استرن كبضا إذا ما استرن من شر ما خلق فحو أبو شرط أيان كما مغنقلها ننكي سيدا يرها لم يضره شيء وحدب مايو وآيهي لم يضره شيء دب ماي حتى يرحل إلى أكررتو كجورو من منزله ذلك باس كاس ودقي راه مسلم بحديث وري حديث كانوا حديث أدو قابا الدعاء يراكوبا كسابسا أدنو قيمة بدنوي كوارد سحيلة رسولك عليه الصلاة والسلام بان مقلي سقوا لقفك من نزل منزلا باس نكي دقو علماء دو حيدهن وآيهي ومحلي لها waxa loo yaqaano man nazala manzilan waxa weeye waa nakira wey manzilan waa nakira wey oo weliba fi siyaaqi shardi dhacday alle mantuqa shardiyo wey nakiradana hadday shardi booskiisa taalo cumuum bay faa'iideysaa bimacnaa guri marka uu degan yahay toos u degan yahay noqdo guri cusub oo hadda degay oo hore u sii degan yahay noqdo mid oo hadda degay ha noqdo mid cusub hadda la dhisay ha noqdo mid meel isagoo socota uu degay ha noqoto loo jawaabeen jiiftay ha noqoto meel uu macnaha xogo ku nastay ha noqoto meel kasta soo galiso man nazala manzila ninki dagoy oo faqala marka yira a'uudu bi kalimati llahi taamati kalimat ilahi baan man galaya kalimat kaas maxaa laga wadaa ee taamaadka waa jamcu kalimatin way waa quraanka ilahi subhanahu wa ta'ala si culimada qaar ba ku fasireen qaarna inka soo sheegeen kalimaadka kowniga iyo sharciga labada waa soo guda galaya way تامات دمسترن في الصدق وهي الصدق في الأخبار هي العدل في الأحكام بآيات الله سبحانه وتعالى هي كلمات الله يكون مسترين وبمعنى وحي كور ما يورون حاجة وكذا مسترين وحاجة كانوا كده مسترين حاجة أحكامته هي السويتان كانوا كده مسترين وي محل يوم قال من شر ما خلق وحو أبوري شرطه مركوا الدعاء اللي يقانا قلبت الصباح الآخر وأذكار الصباح والمساء كثيرا أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق واي قفك إذا سيدا يراها وكلمة كل واقع نبي وحي عليه السلام يضر شيء وحنق بما شيء أيضا ونكره وفي سياق النفي تعالى واي وحنما وحير وحبا منا ما دبا ينوي جن ولا إنس ولا غيرهم منا دبا ما ينوي واي حتى يرحل من منزله ذلك إلى بوسكي أو مركا أو كجورو واي هدي بوسكي وكجورو ماشي كلو توين وأقريوي marka ducadaas waa duco muhiim weeye halkaas waxa kale ka qaadanayna sharaacadeen anagu waxayna bartay hadii dadka wax laga bedelayo oo wax laga digayo oo wax meesha laga qaaday bedelkooda waa in meesha la soo dhigo maadaama hada jinki iyo ilaahay qeyrkiis inay macnaha magan galaan loo diiday hada meel eber dadka iska ma taagnaan bedelkiya la siiyo waxa la yiraahdo a'uudu bi kalimati llahi taammat min sharri ma khalaqa ayaa marka la baray waay marka waana duco aad muhiima qofkii aqriyo oo galabtii aqriyo ama subaxdii aqriyo saddex jeer ka aqriyo asagoo oo aan marka maxaa la yiraahdaa ku kalsoon in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku badbaadinayo kalimad sugan inay tahay ku qanacsan insha Allah ta'ala wax dhibay ma leh wala hangar la qaniinaynin wala bahal kan qaniinaynin wala dhibaan u iimaanaynin insha Allah ta'ala waay حديث مركز ماشي لو كانوا لقد دليشنا وحوي أعوذ بكلمات الله وي تامات كلام وين محايا الكلمات إلهي سبحانه وتعالى مخلوق معها قرآن إلهي أبوري معناه مخلوق معها وصفة من صفاته سادرادت ولا ما قال يا أو ويبنانته ويبنانته هل كان سبحانه علماء والسلف ودليشدان قرآن كإن هذا مخلوق أهن وحياله كتصينه وحكمده وحيدهن ولا ما قال كره ولا ما قال كره مخلوقنا وحي علماء ونسلوه قال لهن إن أنا لمكاس أنا لا أقولين قوي إن لما قنقلوا محايا لا يجوز الاستعادة عند معنا بالمخلوق أئمة ضرن باسيد الشيء أئمة ضرن باسيد الشيء وين فيه مسائل بابا قسم بشيخ رحمه الله تعالى
الأولى مسألة كوبات تفسير آية الجن آية الجن تفسير كذا مركا آية الجن وحي كهذا شيء أو وحي صومالد أي قانون يسمين جيران ها وميلها قبورها كويلان أجار كودي مركا لما رأيو شيخ لو أذانكم مجنقلني أذان مجن كونا عني خيرك هدو أنتوا سوق جورو مال أو نين قف أولياء لو شيء وإحنا عس وكو أسني هاي وحويان اللي سوق أجدقي هدي اللي أجمرها إن لدي جرا هي شيخ لو أذان مجن كونا عني خيرك بعلا ذكي إلاريو هذا وكاس وحصل لدي جري ووحي قانون مكوان الشركي أكبر وياه. الأولى مسألة كواد حاول تفسير آية الجن آية الجن تفسير كذي. الثانية مسألة الله حاول كون الاستعادة مجن جالكاس وحاول أهايشيدي سوى من الشرك شرك وكميديا ولا من الشرك الأكبر وين شرك وين وكميديا. الثالثة مسألة حاول الاستدلال على ذلك بالحديث دليش لو دليش أرنتت بالحديث حديث لو دليش حيا لأن العلماء علماء يستدلون به وحيود دليشدان على أن كلمات الله غير مخلوقة إن يتهي وحيود دليشدان قالوا حيدهن وعير الاستدلال على ذلك بالحديث حديث وارنتاس مركا لو دليشدو وإن استعادة إيه وحي لقوا بدليل حديث لو دليل لأن علماء يستدلون به وحيود دليشدان حديث كان على أن كلمات الله إلهي كلمات كيس غير مخلوقة إن يتهي حيا ما دام لما نقلها هذا معناه وحوي مخلوقا معها قالوا وحيدا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك ويدين علماء وآية وحدات كغبارتنا ومعتبر علماء الإسلام كالسلف كميدا غير كوضبا مجران وياه مركع استدلالك علماء وحكوتصين يا حدي مخلوق أي كلمات إلهي سبحانه وتعالى أيهين لما مغنقشين لما نبنيسين إلا ما نقلوا حقك لو حكوتصين يا إن أنا مخلوق مركع لما نقلي كريم أي هدي لما قالنا الشرك أي تهي أي كتصينها الرابعة مسألة أفراد حول فضيلة هذا الدعاء دعاء تنفضي هذا مع اختصاره قابني دي سلا لقبه أسوأ آيات أير وإنت كوكوبا ونو البؤس كحفظين كرو هبين معنا قلبك السيسوح كالسنة إنو أقرياب لقربا وأقرين كرو أيها هدانا قيمها إلا ذا يفضي أي كفضي ذو أيها اللي يري قفك أقري لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك بل الخامسة مسألة الشناد كفى يسين بابك حوي أن كون الشيء شيء أهاشدي سيحصل به وكحصل منفعة فائدة دنوية الدنيا من كف شر معناه اللي سكريباه أو جلب نفع أما فائدة اللي سوى جيدا لا يدل متصين على أنه شيء ليس من الشرك إن أنا كمدهن هذا وعرين مهم جدا وين وحان إن فائدة أي كاكسو قليسو إن فائدة أتكهليسو فائدة ها نقطة دبكوسو سعودي ولا جا عليه ولا جا هرستاجو أما فائدة أطبع هنيد ها نقطة ولجوسو جيد إيه فائدة كوسو قشها نقطة تصيني ما يصير شيء كان إن أنا شركة وإسكاب بنايه ما تصينيش على سبيل المثال وحياة فرب بدن باجرة ومركل السماء فائدة كاسو قليس حاجة كان دبة وحرامة تصالها الدك خمرة كشقيسو أما الدك الدراجس كي وحيالها الدك السرقامي وصدقات كيو معناها سجار كيو وحيالها لمتك ذاتك حشيش كيو كجناع صدو فإذا كسوقش فإذا الدنيا أي كهلان مركتها ملانا هاي ما دام أي فائدة لا يده أي ليهين ويبناهين ملانا مايا إلهي خمرض مركو كهلا سبحانه وتعالى فائدة وكشيء هذا أنا وحيري أيده إيو طرب كي وحيالها العيارة ما يسرك الله يقانو فإذا مركو شيء إلهي وحيري سبحانه وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما دنبي قالوا إلا قال كل ما يو يمر والبو فائدة ضد أكوين وكعلس مرك فائدة إلهي أصغي أيضا يصير جرته أيها هدنا اللي يروى حرام لما أقوله يا اللي يروى حرام وين مرك حدي وحدي كرته ما مرك قاركود إلهي غير كيس قف دنت إن إذا قاركود مجن جلان أو إذا هن شيخ هبلو أرجع وارد أديك عودة مجن لجوي هاي صا أروري أرجع مركبة صعد إن لهلا وحيالها أي مركب آخريان تذكر أهل القبور كأنت بدن أي كان دعودان كميته ويلين هذا كورا قبر يسكتيسان لو سمي والله هلي كان قالوا والله هلي كان قالوا لو جوليستي سلان دلي ويسا قبر يسكتيو كده من وايد شيء وحاسي دلدلان وحصورا مركو حكاجة فلان هذا كان شيخ أكوجي رحمه الله تعالى شيء جائن فائدة الدنيا أي كاسة وقشوا تصيني ميسا إنه بناي هاي تصيني ميسا إنه شركة هاي
وحصل كما تصينيس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية أي كو حصليس لو هلايو أو من كف شر لغا ريبا أو جلب نفع وهي فائده نفع معناه وحول لو سو جيدا لا يدل تصين على أنه ليس من الشرك شرك إن أنا كمثل أهين تصين ميس شيء إنه كو بنايا كو بل waxaa dhici jirtay qurayshti oo macnaha nabigeena cali salaam laga soo dhaxsaaray oo diinku u yeeri jiray qaarkood inay macnaha asnaamtooda intay u yeertaan ay hata wax badan ay macnaha marka qaarkood looga dhex dhawaaqi jiray marka qaarkood loo soo jawaabi jiray waxa soo dhan waa shaydaan bay dhaheen culimadu shaydaan way dhaheen shaydaan ba marka waxa weeyaan si maxaa la yiraahdaa oo dadka u sii fasahaadiyo si maxaa la yiraahdaa oo macnaha ugu soo tadheereeyo macnaha waxa weeyaan dambiga u sii galaan oo asaga wadadiisa ay u sii qaadaan ayo waxyaalahaas u sameynaya way marka taas waa muhiim jiddan way waxyaalo badan oo dadka qaarkood ay daliil ka dhigtaan bay kamid tahay in shaygan waa la helay kanay marka loo yeerto waa la helay oo sheekh hebel markii maxaa la yiraahdaa neef loo qalay oo la magan galay waayahay waa la helay waxa soo lagu guuleystay waxaasay marka daldalaan marka arinta iyadoo dhan waxaan leenahay kuma tusinayso shayga noocaas inuu banaan yahay waayahay kuma tusinayso waaya marka waxaan leenahay tusaale amal jinka dadka hadda la shaqeysto Soomaalidu ay yaqaanaan jinku adeegi maayo oo waxa adigu doonto ku qaban ma ilaa aad gaalowdo way yaqaanaan way gaalnimadu waxa kamid ah magangalkiisa la magan galo waaba wax lagu gaaloobay way wax badan buu kula qabanaya oo dadka waxa dhacda hataa qaarkood inay ku shaqeystaan oo wax Allah wixii rabaan u dirsadaan oo wuxuu qofku soo dilo u dhaay ay soo dilaan oo qofkii soo xira oo soo xabis u yiraa ay soo xabisaan waxa dhan marka maadaama ay faa'iido badan u qabanayaan ma waxay ku tusinaysaa inay u banaan tahay ma waa shirki weeye tusaale kale iska fahmi kartaan nin madaxweyne amal midalan ama nin maamul haayo ayaa wuxuu soo booqday meel magaalo ayuu soo booqday kadibna dadkii magaalada jooga qayb kamid ama ayagoo dhanba yaa sujuud u dhaceen waa loo sujuudo wajiga sida salaada loogu sujuudo ayaa ninka loogu sujuuday kadibna dadkii ilaahay aad buu macna ninka ugu farxay dhaqaale badan waa uu sii marka maadaama ay sujuudooda dhaqaale badan ku heleen in ilaahay qeyrkay u sujuudaan waa u banaanta miyaan leenahay ya alle faa'iido ku soo gashay marka hadii la yiraahdo ma way arinta ma dhici karto hadii marka la yiraahdo wixii faa'iido laga helo waa iska banaayeen wax Allah wixii faa'iido laga helo baad khayr baraka ku jiro wakaas waa la helay oo faa'iido laga doonayo waa la helay oo la yiraahdo arintaas marka arin sax ma dadka qaarkood waxa laga yaabaa quraan macna qof inuu ka xanuunsado afan qof inuu ka xanuunsado kadibna jimba loo dhawaaqay kii buuraha jiriyo kii macna halka jiriyo soo deg baa la dhihi qofkii macna waxa weeyaan jinkii waa imaanaya neef baa loo qalaya isagii baa hadda la magan galay marti loo yahay markii neef loo qalo kida oo jinki loo yeero qofkii waa fasamaaday marka maadaama qofkii uu nooc caafimaad uu ku fiicnaaday arinta noocaas ah u fiicnaaday ma waxaan leenahay arinta aan sameeyno dhan waa noo banaantahay maya weeyaan marjizaakum Allahu khayran arintaas waa arin muhiim ah jiddan oo in lagu baraaro ay markaa tahay weeyaan waayahay baabu min ashirki shirki waxa kamid buu sheekhu raximah Allah ta'ala ay yastaghitha bi ghayri Allah ilahi ghayrki inuu gargaar qofku weydiisto ay yastaghitha bi ghayri Allah ilahi ghayrki inuu gargaar weydiisto oo yad'u ghayrahu ama ghayrki alla ghayrki uu bariyo tarjamadan iyo baabkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa al-istighatha iyo wad-du'a marka istighathada waa qayb kamid ah ducada kamid ah wad-du'a a'ammu min al-istighathati oo waxa la yiraahdaa istighathadu markii in lagu gargaaro aad u baahanta bisay noqotaa oo marka xaalad ku qabsato wixii dhex fariisato oo dusha ku qabsadaan umba istighathada timaada ama ducaado ama waxa way kurba iyo culays ha ku haysto ama yaadna ku haysanin mar walba iyadu waa caam marka waa cadful caami ala al-khaas waayahay istighathadu markuu waxa way talabul qawshi way in lagu gargaaro ina codsato dalabta leeyahay isla markaasna shidada iyo culayska ku haysto laga faydo oo laga leexiyo ayaduna waxa weeyaan waa duco way maxarra waa cibaado way waayahay marka koobaad horta waxay ducada guud
أي كتر سنتها وإلهي سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني إبريوه وحانو اسكوه يعني شيء كالسؤال الأسفره وعبادوي وين استغاثة مركز دعاء جود وإلهي أمري سبحانه وتعالى أي قيب كتاه كم يتهاي وين مركز عبادة وي إن إله غيرك اللو اللي حيانا مركز ما بنانه والشرك يكفر وي إن إلهي اللو اللي حيانا وتوحيد وإخلاص وي استغاثة مركز حد بقى الله بيوقف سنتها wax makhluuqaadka la weydiisan karo iyo waxaan la weydiisan karin istiqaasado hadii qof nool la weydiisto qofkaas waa nool yahay hadana xaadir ah muxuu xaadir ku noqon karaa waaba ku hortaagan yahay si toos ah loola hadlo dhawaaqiisa maqli oo meel ku dhow ku jooga oo waad codkaada gaarsiin kartaa masamaha si kala wasaa'il kala ku gaarsiin kartaa telefoon u diri kartaa email u diri kartaa maxaa la yiraahdaa idaacadda wax walba adiga si kasta ku gaarsiin karto waa qofka codkaada aad gaarsiin karto xay ah waaya xaadir ah hadana maxaa shardi saddexaad uu leeyahay qaadir ah wuxuu weydiisanaysan wuxuu kari karo inay noqdaan saddexdaas makhluuqi laga helo marka in wax la weydiisto ayadoo dhib malaata waa iska banaan tahay kitaabkii sunnadana way ku soo aroortay ninkii nabi ilaahi Muusa alayhi salaam oo gacantiisa ku dilay markay ninkii qibdiyada iyo fircoonka reerkiisa ka tirsanay ninkii reer bani Israa'iil markay isqabteen oo dagaalka dhaxmaray markuu ninkii reer bani Israa'iil uu arkay nabi Muusa alayhi salaam wuxuu yiri bal ninkii iga gargaar fastaghathahu alladhi min sha'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Muusa wa tiih marka waxa nabi Muusa la weydiistay waa gargaar war ninka waa idilahaya iyo culayska ay haystay iga qaad ayaa la weydiistay marka Muusa waxa la weydiistay alayhi salaam wuxuu kari karo way ووحو كاري كارو هدي وحي مركا او كاري كارو مخلوقه نبي موسى مركا حاضر بو اهاي قادر نوا اهاي وحي لويجيس وحوا كقبن كاري يا واياي مركا حي نوا اهاي من نول واحد شروطي ودن waa laga helay taa kala tuxba dhib malaha iyadu laakiin dadka qaar kood baa waxay rabaan marka ay istiqaasada mid shirkiga ah oo qof dhintay ay rabaan inay wax weydiistaan oo aan xaadir ahayn waliba hadana ay laga yaabo wax aan awoodin inay weydiistaan sida roob nookeen iyo caafimaad nasi iyo caruur maxay yeelana si iyo wixii lamid ah bay maxal yiraha aayadahan iyo nusuusta ku soo aroortay istiqaasada banaan bay u daliishadaan ujeedadoodana waxa way dadka in la jaha wareeriyo talbiis dadka in lagu sameeyo way oo dadka la marahabaabay oo cuquushoodi macnaha la leexiyo meel kale loo leexiyo taana sax ma ducadana hadda waa cibaado waa soo marnay oo guud oo istiqaasada kamid tahay aayada quraankan ilaahay waa ku sheegay subhanahu wa ta'ala amr bu alla ku bixi oo ilaahay cibaado ku magacaabay وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عباده لكم magacaabay وانا ducadigu waaya حديثنا وكو هاي إن الدعاء والعبادة وحسب مركز حديث كجرو محيالي إن الدعاء دعادي هو دعادي العبادة هو مركز خبر كي وحال لقدقي معرفة لقدقي مبتدئين محال لقدقي معرفة لقدقي مركز ذكرات البلاغة مركز المرة حصري باكو سون بمعنى عبادة حيكو قوانت الدعاء ساسي كده انت ويه وقول الله تعالى أيوب باب أبو الشيخ رحمه الله تعالى ولا تدعوا هو يرن من دون الله ألا كثوكو أما مع الله دون بمعنى مع الله بين غطاء أما غير الله بين غطاء إله غيرك هو يرن أما ألا لجيرك هو يرن ما وح لا ينفعك أن وحكو ترين إن أضعته هو علماء تفسير كسلفك كفسران هدي أضيع ذو أض مقشو ويا وحبكو متركره خير إيمانك منكم مسجدك ولا يضرك أن كدبي كرين إن عصيته هذا عاسسة أضحك عن سيرتنا وحبك ما جوين كرو فإن فعلت هدي أسيد سما اسمك وح أن وحبك تركوا يرنين هذا أضيع ضان أو وحكو تركرين حقا هدي عاسسة أن وحبك جوين كرين هدي أد مركان أد ويرت على الجركيس فإنك أدو إذن إسلام مركا أدو حصمينيسو من الظالمين أي من المشركين أتكمته واي مشركين آيات كمته الضارين لأنفسهم ولبا مشركين تسوء هو النفط ودبايا محي كل دبايان الواضعين العبادة في غير موضعها كواس أولي بعد دقايان عبادة
يوحي إلهي خاص الله سبحانه وتعالى ماشي لو قلت رجل ميلان نهين معناه ذو حاول قفك هذو الشركي معصية وشركي قوي هذو قفك كله نتي سهورة الرباية ومد كوبان مد الله بعد وحوي والشركي بكل عيوه هذا مشرك بالغو مجعابه مد ازدحاد وحوي قفك إذا إلهي وحبك مجوينا نفتي سمو الرباية ومد أفراده عبادة وحود دقي مال عن لو قلت رجالين بعبادة دقي وكا واي يو قول الله تعالى إلهي وير وإن يمسسك الله الله دي أكو تابتو بضر رب ها ونكرة في نفي في مع ونكرة أو دعدي في موقع وهي الشرط شرط بيدبتها الله مركة عموه بضر وحن ها وحن هذا يرادين أما هو ينادين وهكذا هذو على كو تابت سبحانه وتعالى هي فلا كاشف له عد كافي ذكرت ملا إلا هو أسلمه وإن يمسسك الله الله دكو طاف بضر فلا كاشف له عد كافي ذكرت ملها إلا هو أسلمه وين كان وحوي عد إنكرسن ملها عد إنكرسن ملها لكن ولا اسمه سينايا وحدنا كلا وشيطان دمي أمض اللي حين يمويا وقوله تعالى يبابها إله وير فبتقوا رادي أو ضلب عند الله ألا أكتي كضلب الرزق رزقه رزاق هذا دون إنسان ألا أكتي ذكر هذه عد لها كرادين وين وآيات وحيها بلاو قد إن الذين تعبدون من دون الله الذي كسوا كواد عابد إنسان ويرن إنسان لا يملكون لكم رزقا رزاق إن مهايان وحبين مهايان لا يملكون لكم رزقا وحبين مهايان وي فبتقوا عند الله الرزق وأي رزاق ده الله أكتيس كرادي هكا وي يو قول الله تعالى الله يري ومن أضل يا كباد نمبضا أو كل مدبضا ممن دول حق يدعو ويرنا من دون الله كسوكو ما لا يستجيب له إذا أن أجيبين من دول أو لا يستجيب له أن أجيبين إلى يوم القيامة أنت لقى جاره بمعنى إلى قيامة الساعة حتى دي لقاره ما أجيب ين لكن وحل سكيرها ووح عن معناه وحوي وحباب كجيرين أو صورة قالهن أيال لقوضها وايه يا كبعض ما بدن عد ودواقنيسو يريسو عبادته u leexinayso ilaahay subhanahu wa ta'ala kasoo ama alla la jirkiiso ciidan ajiibi karin maanta oo dhan qabri hadaa tagto ku dul qayliso war waxa i weydini anigu ma awoodana kuma dhigi karo waan awoodana ima dhigi karo ila ma hadli karo ima jawaabi karo maxaa waqti iskaga dhuminay marka hatta waa i maqlaa hadaan dhahno nusuusta ku soo aroortay aan salimno dhahno way maqlaayaan oo qodadka qubuurta ahlu qubuurku way ku maqlaan qofkii salaamay qofkii soo booqdo way maqlaan liira laakiin kuma ajiibi karaan jawaab ma bixin karaan way sadaraad marka maxaa waqti la iskaga dhuminayo way hadii jawaab bixin karin maxaa waqti la iskaga dhuminaya insha Allah ta'ala waqtiga ayaa naga dhacay inta ayaan ka sii wadi doonaa halka darsigan maanta insha Allah ta'ala aan ku koobna hada billahi tawfiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.